xubno ka socda hogaanka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa ay booqasho ay ku tageen college ku yaala dalkaasi oo waxa ay ka bartaan arday Soomaaliyeed. wariyaha Maxamed Cusmaan Daahiye ayaa faahfaahin arintaasi ku saabsan inoo soo diray. xubno ka socday hogaanka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa booqasho ku tagay college weyn oo ay wax ku bartaan arday ay qayb ka yihiin kuwa Soomaaliyeed. مسؤولينتني oo horkacay wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa waxa ay booqasho ku tageen macadka dhameystiran ee magaciisa loo yaqaan YMCA Buambo oo ay wax ku bartaan in ku dhow ilaa 50 arday oo Soomaali ah oo badankood halkani u jooga barashada luqadda Ingiriiska waxa uu ku yaala college-kani degmada Ukizo ee gobolka dhexe ee dalka Uganda. gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee macadka YMCA Buambo Yahya Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay xubnaha ka socday Maqso waxa uu ugu warbixiyay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata college-kani. gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buambo campus. waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadaada. runtii tan waxa marqaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogan. taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta noogu imaaday adigoo jooga meel intaas oo kiiloomitir naga jirto ama nooga fog aan noogu imaaday inaad ogaato xogteena sida uu noolnahay waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulano halkan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata YMCA. runtii waxay muujiyeen isku duubnaan iyo hadaf. wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka oo ardaydani kala sheekaystay waxbarashada iyo noloshooda halkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay bilaabi doonaan tirakoob rasmi ah sidoo kalena waxa uu ardayda kula dardaarmay in ay ka fogaadaan qabyaaladda iyo kala qobqobka ummadda Soomaaliyeed. qorshaha waxyaalaha noogu jira waxa kamid ah inaynu sameeyno tirakoob rasmi ah oo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda taasoo iyada naftirkeeda sahli karta waqtiga aynu doonayno in doorasho cod iyo qof aynu gaarsiino madaxweynaheena ama gudoomiyaheena ugu sareeya ee midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed markaynu rabno inaynu doonano insha Allah taana waynu ka shaqeyn doonaa. dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxa kamid ah qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid runtii waa wax laga wanaagsan yahay insha Allah waxa isku dayeena in sida ugu macquulsan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyi gelin lahaa. waa dareemi kartaa marka dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan si wanaagsan waxyaabo badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxa la soconnaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaabo kale. waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allah awood laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbedel wanaagsan aynu ka sameeyno markaad la tacaamuleysaan safaaradda waad rabtaan inaad aadaan high commissionka insha Allah haddii Allah awood laga helo. ugu dambeynna qaar ka mid ah ardaydani ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan booqashada halkani ay ku yimaadeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Maqso. salaamiya markii koowaad ardayda Soomaaliyeed ee saldhigano oo xarunta saldhig wax isla barano maadaama ay yihiin ardayda Soomaaliyeed waxaan marka xigtan salaamaya gudoomiyaha ardayda qaranka midowga oo mar dhow la soo magacaabay walaalkeena Cabduqaadir Fiidka. waxaan kaloo salaamaya gudoomiyaha Yahya Cabdullaahi Bariise oo kamid ah gudoomiyaha ardayda. waxaan leeyahay kullee yani alxamdulillah ardayda meesha ka bartaan kamid ahay waxaan leeyahay walaalay Soomaaliyeed waxaan leenahay marka qurbaa joogno aadan isku jecelnahay wadankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano. waxaan kaloo mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo naga warqabto oo noohay maadaama wadanka ka baranay noo soo magacaawday qof xaaladeena iyo dhibaatadeena iyo waxa meesha nagu hayaan u sheegan karno marka waan u mahadcelinayaa. waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed. waxaan leenahay aad u mahadsan tahay maadaama aad nagu soo booqatay YMCA
ka warqabidda aan naga warqabtayna waan kaaga mahadcelinaynaa runtii taas waa arrin lagu farxo waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed runtii mana hilmaami doono waxaan mar kale ku dhahaynaa soo dhawaaw Maxamed Cismaan Daahiye